السلام عليكم. maanta waxaan doonayaa inaan horta marka ugu horeeya Ramadaan Kariim Ramadaan wanaagsan aan gaarsiiyo dadweynaha reer Djibouti. marka labaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo walaalahayaga xafiiska ku jira culimada iyo siyaasiyiintaba in ay ogaadaan markaanu soomanahay waanu ducaynaa, markaan afturayno waanu ducaynaa, markaan shanta salaadood tukanayna waanu ducaynaa, marka aanu salaata leelka tukanayna waanu ducaynaa in ilaahay xabsiga si degdeg ah uga soo saaro oo faamiyadoodii iyo dadkoodii la ciidaan ayaanu u rajaynaynaa, waanu soo ducaynaa ilaahay garabkiina ha galan leenahay. marka labaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo maanta dhalinyarta macaaridka. waxaan doonayaa inaan faro in ay ogaadaan in saddex oday oo waayeela oo sharaf leh, Ismaaciil Geedi Xareed, Axmed Yuusuf iyo Cumar Cilmi Khayre, inay yihiin waalidadeen, inay yihiin aabbayaasheen, in laga xishoodo, in la daba joogsado, in la ixtiraamo. intaasaan maanta faraya. waxa weeye dad waaweyn, waa dad waayeela, waa dad karti leh, waa dad soo halgamay, waa dad halgamaya, waa dad doonaya danta dadka reer Djibouti. walaalayaal waxa weeye waxa la yiraahdo ambition af Faransiiska lagu yiraahdo amba waxa la yiraahdo damiirka waa inuu ku qabtamo, waa inaad joogsatid oo istiraahid maanta odayada, waa in laga xishoodo, waa in la daba joogsado odayada. marka saddexaad waxaan doonayaa in aan u sheego USN in ogaadaan diasporaga waxa laamba qurba joog inay diyaar u yihiin inay miiska soo fariistaan, ay ka qayb galaan wada hadalka. iyagana waxaan kula talinayaa USN in si degdeg ah ay uga soo jawaabaan baaqa aan u soo dirano leenahay, waa in diasporaga ay ka soo qayb galaan, ay soo fariistaan. anigu waxaan doonayaa inaan magacayo maanta u sheego xaggan inka la yiraahdo Maxamed Kadhacami inuu ka soo qayb galo weey, Aynaashe, Qaasim Ahmediini, Mahdi Ibrahim Good, Alexis Mohamed, Ali Kuba, dhalinyar badan oo caynkaas jira iyo in badan oo Kanada joogta. waxa weeye waa in si degdeg ah looga qayb galiyo wada hadalka, ay noqdaan dad miiska soo fadhiisan kara. marka dambe waxaan ku dhameynayaa hadalkayga, walaalayaal ciid mudaharaad weyn baa dhacaya amba isku soo bax, idinka oo nabadda ilaalinaya, idinkoo wadankiina ilaashanaya, idinkoo on dhibaato doonin, idinkoo askarka doonayna dhibaato, waa inaad soo baxdaan oo muujisaan inaad tihiin dad ka soo horjeeda systemka wadanka ka jira, laakiin inaanad shakhsi bini'aadmiga ka soo horjeedin, inaanad shakhsi bini'aadmiga aanad diidanin, aad systemka diidantiin. walaalayaal waxaan leenahay haddaan inta dib isku maqli weyno, ciid mubaarak, mudaharaad wanaagsan. annagu Kanada haddaan joogno waxaan idin leenahay ciid mubaarak. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.